mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha caafimaadka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed deeq-bixiyaasha iyo hay-adaha ka shaqeeya horumarinta arrimaha caafimaadka ee dalka ayaa ka qayb galay shirkan oo wejigiisa labaad maanta xoogga lagu saaray falaqeynta iyo qorshe u sameynta qaabka lagu horumarin karo hanaanka caafimaad ee dalka. ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ka dooday caqabadaha jira iyo qaabka loo xalin karo, waxayna dhinaca kale istusaaleeyeen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqeynta si loo gaaro yoolka bahda caafimaadka oo ah in qof walba oo Soomaali ah uu helo adeeg caafimaad oo tayo leh iyo in adeegyada caafimaad la gaarsiiyo dalka oo dhan. Dr. Nuur Cali Maxamuud, agaasimaha siyaasadda iyo qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo kulanka kadib warbaahinta qaranka la hadlay, ayaa sharaxay qodobadii muhiimka ahaa ee kulankooda ka soo baxay. waxaa aad loo falanqeeyay wixii noo qabsoomay sanadkii la soo dhaafay 2020 maxaa caqabado jiray, sidoo kale waxaa diiradda loo saaray ahmiyaadka noo yaala sanadkan 2021. waxaan rajeynaynaa insha Allah anagoo ka faa'iideysanayna hoggaanka wanaagsan ee dowladda federaalka inaan shirkeenan si joogto ah u qabanno oo si bilo ah aan ugu qabanno, aan xoojino wada shaqeynta dhammaan hay'adaha iyo maamul goboleedyada, adeegyada aan gaarsiino bulshada si wanaagsan baa looga soo shaqeeyay, dib u eegis badan baa lagu sameeyay. haddana waxaa aad la isugu waafaqay dhammaan in hay'adaha ay dhaqaalo iyo resourciga ay hayaan inay ay ku bixiyaan horumarinta adeega caafimaadka heer bulsho, sidoo kalena horumarinta adeega caafimaadka hosbitaalada oo sanooyin badan aad nooga liitay. haddana in xoogga aan saarno badbaadada caafimaadka bulshada heer walba ay joogaan. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan hagaajinta iyo horumarinta arrimaha caafimaadka guud ee dalka si uu qof walba u helo adeeg caafimaad oo dhameystiran. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.